Bismillahir Rahmanir Rahim. Aan wax ka barano weydiintan ah, what is a reserve requirement? Bangiyada waxa ay macaamiisha ka qabtaan deposit ama dhigaal. Haddaba waxaa laga rabaa bangiyada in qayb ka tirsan depositka in ay meel dhigaan oo aanay u isticmaalin maalgashi ama inay deyn ahaan u siiyaan macaamiisha kale ee rabta inay lacag deynsadaan. Haddaba lacagta dhinaca la dhigayo ayaa waxaa loo yaqaanaa reserve requirement. Sidoo kale bangiga dhexe ee waddanka ayaa xadidaya boqolkiiba intee ayaa meel la dhigayaa, taana waxaa loo yaqaanaa reserve requirement rate. Qaacidada lagu ogaanayo inta laga rabo inuu bangigu meel dhigo ayaa ah sida tan. Bank deposit ama macaamiisha depositka laga qabto ayaa waxaa lagu dhufanayaa rate-ka ama boqolkiiba meeqo ayay xadideen bangiga dhexe. Si aan u fahanno qaacidadan, aan tusaalahan isla aragno. Tusaale, qof macmiil ah ayaa keensaday lacag dhan $100 Muqdisho Bank. Bangiga dhexana waxa uu xadiday in boqolkiiba 10 meel la dhigo. Haddaba bangiga loo keensaday lacagtan ee Muqdisho waxaa laga rabaa inuu meel dhigo oo aanu isticmaalin $10. Taas oo ku timid markii $100 lagu dhuftay boqolkiiba 10 ama eber dhibic hal, waxaan helaynaa $10. Haddaba tijaabi moobilkaaga, waxaa la rabaa inay kuu soo baxdo 10. Taas oo ah lacagta laga rabo bangiga inuu meel dhigo aanu isticmaalin. Aan u soo laabanno bangiga lacagta loo keenay ee Muqdisho, imise ayaa loo ogol yahay inuu isticmaalo. Taas uu ka heli karo faa'iido. $100 ee loo keenay ayaan waxaan ka jaraynaa $10 ee la rabay in dhinac la dhigo. Haddaba waxaa noo soo baxaysa $90. 90kaasna bangiga wuu u madax bannaan yahay inuu maalgashi ku sameeyo ama inuu deyn ahaan u siiyo macaamiisha. Markana aan isla fahanno waa maxay sababta looga xanibayo bangiga Muqdisho qayb ka tirsan lacagta macaamiisha ay u dhiibteen ama depositka. Waxaa ka mid ah sababahaas in awood loo siiyo bangiyada ayagoo adeegsanaya kaydkan inay dabooli karaan baahida macaamiisha haddii si lama filaana ay macaamiisha lacagtooda ula baxaan. Sidoo kale reserve requirement waa mid ka tirsan aaladaha bangiga dhexe uu adeegsado marka uu rabo in uu badiyo ama yareeyo tirada lacagta suuqa taala ee qiimaha lagu kala deensanayo. Aan isla aragno sida uu bangiga dhexe u gaaro ujeedka. Tusaalaha koowaad waa marka xaaladda ay caadi tahay, sidii aan xisaabtii hore ku soo aragnay. Haddii macmiilka laga qabto $100 oo deposit ah, $10 ayaa meel la dhigayaa, inta kalena bangiga ayaa loo deynayaa si uu faa'iido uga soo saarto. oo sidaad aragtaan 90% deyn ama maalgashi ayuu ku samayn karaa bangiga. Midda labaad waxaa la yiraahdaa contraction policy, waana marka bangiga dhexe uu rabo in uu yareeyo lacagta ku wareegaysa suuqa. Xaaladana badi waxa ay timaadaa marka sicir barar uu ka jiro wadanka. Bangiga dhexe si uu u wajaho arrinka ayuu sare u qaadaa lacagta bangiga uu dhinaca dhigayo reserve requirement rate, oo meeshii markii hore ay ka ahayd 10%, hadda waxa ay noqonaysaa 20%, oo lacagta bangiga faa'iidada uu ka soo saari karo way yaraanaysaa oo waxay noqonaysaa 80%. haddaba marka lacag yari wadanka ay ka dhacdo, dulsaarka ayaa bata, dadkuna waxa ay bilaabayaan in ay yareeyaan qarashaadka ay bixinayaan, waxa ayna badiyaan maalgashiga ama kaydka. Xaaladda u dambaysa waa marka ay jirto expansionary policy ama sare u kac dhaqaale, waana marka bangiga dhexe isaga oo ka wakiil ah dawladda uu hiigsanayo in la gaaro sare u kac dhaqaale, oo waxaa timaada in lacagta bangiga uu dhinaca iska dhigayo la yareeyo
oo laga dhigo 5% sidaad hortiina ka aragtaan si lacagta suuqa ku wareegaysa loo badiyo dadkana loogu dhiirigeliyo ganacsiyada inay lacag deynsadaan oo la gaaro furfurnaan dhaqaale oo sidaad ka aragtaan hortiina hadda lacagta suuqa ku wareegaysa waxa ay noqonaysaa 95%. haddii rabbi idmo cashirada soo socdo ayaan kaga hadli doonaa qaababka kale uu bangiga dhexe adeegsado haddii uu rabo inuu badiyo lacagta suuqa ku jirta ama la yareeyo. mahadsanidin waa inoo mar kale haddii rabbi idmo.